iyadoo lagu guda jiro maalmaha qiimaha badan ee Ciidul Adha ayaa haddana jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Jarmalka oo ay hogaamiso Maama Xaabo Maxamed Cusmaan waxay in ka badan 250 neef oo ari ah ay gaarsiiyeen dadka danta yar ee ku nool qaar ka mid ah xirooyinka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. deeqdan ariga ah oo iska soo aruuriyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Jarmalka ayaa waxaa qaybinteeda loo wakiishtay Cabdicasiis Cabdulle Caynab Editor Xasan Xuseen Roble oo labaduba ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Jarmalka waxaana meelaha deeqdan la gaarsiiyay ka mid ah kaamka barakacayaasha ee ku yaala degmada Boondheere ee Kaam Shabeelle iyo kaamam kale oo ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Editor Xasan Xuseen Roble iyo Cabdicasiis Cabdulle Caynab oo labaduba ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Jarmalka ayaa iyagoo ku sugan xirada barakacayaasha ee Kaam Shabeelle degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho waxay sheegeen iyadoo la eegayo sida dadka danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho sida ay ula wadaagi lahaayeen maalmaha farxadda ciida ay soo gaarsiiyeen deeqdan ariga ah. waxaan aad u faraxsanahay annagoo ah Somali Committee ee Germany iyo Ansar International inaan maanta caawamadan yartaa soo gaarsiino oo ah qurbaankan waxaa soo ururiyay hay'adda International Ansar Düsseldorf iyo ururka Somali Committee oo ay madax ka tahay Xaabo Maxamed Cusmaan waxaana fududeeyay ururka Tedo oo uu madax ka yahay Xasan Xuseen Roble. waxaan aad u faraxsanahay inaan meeshii u saxwaysanayd ugu wanaagsanayd uguna baahida badnayd aan soo gaarsiinay caawimadan. waxaan jeclan lahay tan iyo mid ka ballaaran idanka Ilaahay inaan gaarsiino oo waliba aan gaarsiino dadka aadka ugu baahan. waxaan jeclan lahay Ilaahay idankiis marar badan inaan nimaadno oo wixii aan u kari karno aan u sameeyno. waxaa la idinka rabaa muslimiinta joogta Jarmalka gaar ahaan Ansar Düsseldorf Sheekh Cabdiraxmaan iyo faamilkiisa iyo muslimiinta kale iyo ururka Somali Committee inay u soo duceysaan. taasina waa wax muhiim ah in Ilaahay ajar ka siiyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa ayagana ajar inuu ka siiyo annagana mataqaanaa nagu dhowro idinkana idin calfo waxaan keenay. waan aragnaa waxaan wax weyn maahan wax aad u yar waaye. shalay waxaan qaybinay 40 dibi waxaan geynay xeryo kale maxaa la yiraahdaa magaca xerada gaabi sarkuus oo xero la yiraahdo waa tagnay waa bari waa tagnay maantana intaan joognaa. waxaan jecelnahay si cadaalad inaan u gaarsiino dadka masaakiinta walaalaheena oo u baahan. jaaliyada Soomaaliyeed ee Jarmalka dad Soomaali wax isku soo aruuriyay hal dollar isku soo daray islaam kale to asxaab ah oo sida Ansar Düsseldorf iyo Ansar International iyo Soomaali lacag isku soo dardartay ugu horeeyay Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha jaaliyada Somali Committee Xaabo Maxamed Cusmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo guddiga uu hadda nagala joogo Somali Committee maanta waxaa nagala jooga ninkan la yiraahdo Dr. Cabdirasaaq Cabdicasiis ayaa nala jooga Cabdulle Caynab. marka asagana laba kelmadood oo waxay rabaan dadkan in loo soo duceeyo annagana waxa wixii awoodeena idin keenay intaas ku soo duceeyo waa mahadsantiin. waxaa sidoo kale ka mid ah meelaha deeqdan la gaarsiiyay xerooyin barakac oo ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Jarmalka ayaa inta badan dadka danta yar ka caawisa arrimaha nolosha waxaana maalmihii ugu dambeeyay ay deeq xoolo nool ah gaarsiiyeen xerooyin barakac oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Aweys Maxamuud Jilco, Royal TV, Muqdisho.